الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مبارك، رمضان كريم. الله سبحانه وتعالى أعماشنا أقبله. رمضانك وبالبركة وبش قرآنك وبش الله سبحانه وتعالى الباب جنة أوفره، الباب نحرست أوفره، الباب نارتنا أوحره وحوي شيادينتا لحرحره بشان qofkii aan ka faa'iideysan waa qof khasaaray. qofkii aan ka faa'iideysan waa qof khasaaray weeye. bisha ramadaanka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa ayuha alladhina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaa lamigu farad yeelay soonka sida loogu farad yeelay kuwii inaga horeeyey. maxaa loogu farad yeelay? lacallakum tattaquun, si aad alle subxaanahu wa tacaala uga baqataan. taqwadu weeye muhiimadda waxa meesha looga baahan yahay, in alle subxaanahu wa tacaala aad ka baqato. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa xaggiisa inaad u noqoto. rabbi wuxuu rabaa xaggiisa inaad u soo godoonto oo aad ka baxdo xumaanta iyo waxyaabaha kale. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naxariis badane. mawsimkan oo kale ramadaanka bisha dulxija 10 hore, yowmu carafa, maalinta caashuuraa ee muxaram iyo maalmaha kale oo fadliga ku soo arooray. ilaahay subxaanahu wa tacaala mawaasimtaa wuxuu u sameeyey inaan anagu ka faa'iidaysano una noo naxariisto. lacallakum tattaquun. taqwadu maxaa weeye? taqwadu waa inaad alle subxaanahu wa tacaala caradiisa iyo adiga dhexda xijaab aad dhigto. taqwadu waa inaad alle subxaanahu wa tacaala adeecdaa calaa nuurin min allah. muraadka alle subxaanahu wa tacaala siduu u rabo inaan u adeecno inaad u adeecdo alle subxaanahu wa tacaala adoo manhajka toosan raacaya, kitaabka iyo sunnada adoo raacaya inaad alle subxaanahu wa tacaala adeecdo. taqwadu waa alkhawf min aljaliil, in rabbi laga cabsado. waalqanaacatu bilqaliil, waxa yar aad haysato inaad ku qanacdo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbuu ku siiyey, qof kalena waxaa laga yaabaa inuu kaa fadilay. ha xasdin qofka, dhibaato ha u geysan, xaaraan ha ku dhicin adoo odhanayso hebel ayaan rabaa inaan gaaro. alqanaacatu bilqaliil, inta yar oo adiga aad haysato ku qanaac. fahada huwa aliimaan wa hadihi hiya taqwa. iimaanka waa kaa, taqwaduna waa taa. qofkii inta yar oo alle subxaanahu wa tacaala siiyey ku qanca, kaas ayaa liibaanay fi dunya waalaakhira. waalcamalu bitanziil, taqwadu waxa weeye sida cali bn abi aalib noo sheegay, alcamalu bitanziil, in lagu camal falo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiga uu soo dejiyey waa kitaabka alle. kitaabka alle in lagu camal falo. walisticdaadu liyowmi raxiil, in lasu diyaariyo maalinta la baxayo. yowmu raxiil waa maalintuu qofka uu baxayo oo waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala uu la kulmi doono. dad badan oo dhalinyaro ah baa baryahan waxaa lana soo weydiinayay ama ina soo weydiinayay dhagax soo dhacay, qiyaamaha ayaa dhow, adduunkii baa dhammaanayo, saa weeye. adduunka ashraatu saaca ayuu leeyahay, waa weyn iyo kuwa yaryar. laakiin intaan la gaarinba ashraatu saaca, saacadaha qiyaamada iyo waxyaabaha kale inta aan la gaarin, adigu haddii aad geeriyooto faqad qaamat qiyaamatuka. man maata faqad qaamat qiyaamatuhu. qofkii dhinta qiyaamadiisu waa la gaaray. walaalayaal, soonkan aanu ka faa'iidaysano. waxaan u soomaynaa litaqwa, ilaahay inaan u dhowaano. xumaantu aan ka dheeraano,
wanaagana aan samayno khayrka aan ku dadaalno dikriga alle subxaanahu wa tacaala aan badino qur-aanka aanu akhrino wanaagga iyo dadka sadaqada aan ku dadaalno waxa yar aan haysano inaan walaalaheena la qaybsano taqwadu qalbiga ayay ka timaadaa qalbiga ayay ka timaadaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi attaqwa haahuna taqwadu waa halka fa ashaara ilaa sadrihi xabadkiisa ayuu ishaaray qalbigaada hadduu wanaagsan yahay camalka wanaagsan ayuu kugu hagaa hadduu xun yahay qalbigaadana camalka xun buu kugu hagaa qalbiga wanaagsan qofka khayrkuu la doonaa qalbiga xunna meelaha kale xumaanta ayuu geeyaa ilaahay quluubteena ha ka dhigo quluub wanaagsan qalbigaada waa meesha aad u baahan tahay inaad mar kastaba ka fikirto salafka waxaa ka sugan kuwii naga horeeyey oo wanaagsanaa saxaabada iyo qayrkooda sufyaan thawri waa laga wariyaa cabdullahi bin mubaarakna waa laga wariyaa wuxuu leeyahay nafteyda ayaan waxaan la dagaalamay 20 sana 20 sano 20kii sano dambe ayay i adeecday naftu iyo qalbiga inaad la dagaalantaa u baahan tahay lacallakum tattaquun si aad alle subxaanahu wa tacaala uga baqataan jirka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu noo sheegay cad yar baa ku jiro idaa salaxa salaxa aljasadu kulluh hadduu wanaagsanaado jasadkoo dhan baa wanaagsanaado jirkoo dhan baa wanaagsanaanayo hadduu fasahaadana jirkoo dhan baa fasahaadayo waa qalbiga cadka qalbiga ah hadduu fiican yahay indhaha ayuu laabayaa qalbigaada hadduu wanaagsan yahay xumaanta uma socdo hadduu qalbiga wanaagsan yahay xumaanta ma taabto ama wuxuusan lahayn ma qaado ama dad ma dulmiyo ama qalbiga hadduu dhinto waxaasoo dhan waa u sahlanaanayaan xumaantoo dhanna waa loo qurxinayaa wuxuu u arkayaa xumaantu inay quruxsan tahay heesaha inay quruxsan yihiin xaaraantu inay quruxsan tahay ayuu u arkayaa fa qalbuk qalbigaada ka bilow ibda binafsik naftaada bilow dib isku eeg qof kastoo naga mid ah dib isku eego kadibna ha bilow siduu u sixi lahaa qalbigiisa iyo waxyaabaha ka khaldan tawfiiqda allah na waafajiyo waa barnaamij aan ugu talagalnay insha allahu tacaala ramadaanka iyo fadligiisa iyo qaar ka mid ah axkaamtiisa aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh